waxaan uga mahad celinayaa dadkii alifay ama aas-aasay ama lahaa in dheergaradnimada waqtigaas oo waqti adag ahayd 20 sano ka hor in la sii aasaaso cilmi baaristan intii gacan ka geysatay intii ka soo shaqaysay iyo inta hadda uu adeegtaba mahad gaar allaha siiyo marka waxaan isleeyahay mahad celintaas kadib maanta inaan soo booqdo aniga waxay ii tahay farxad waxay ii tahay cashar inaan khudbad dheer ka jeediyo waxba ma tarayso cilmigii buugtaasuu ku jira dadka halkan jooguu ku jira marka waxaan u nimid inaan anag wax baranno oo dadka bulshadaas wax la barahaya ayaan ka mid nahay dadka hadda lagu tuhumhayo inay siyaasadda ka shaqeeyaan ama waddanka ay hoggaamiyaan inay ayagu wax noo sheegaan ma ahan laakiin macadkan oo kale iyo dadka wax garanhaya inay siyaasiyiinta wax u sheegaan si siyaasiyiintu ay mikrofoonkooda dadka ugu sii baahiso oo caqliga iyo waxbarashada iyo researchka iyo PDRC iyo inta la midka inay siyaasiyiinta ay falaartaas ku duraan oo markaas nimankan siyaasiyiinta oo shacabka ku dhex jira inay ayagu markaas ay gudbiyaan fakarku uusan ka imaan siyaasiga oo uusan dhihin keligay baa wax garanahaya marka meeshii macalinka keliya ay wax ka imaan jireen hadda inuu cilmiga iyo cilmi baaristu iyo jaamacaduhu iyo researchku ay ka yimaadaan macadyada adduunyada ka jira waxay ka turjubahayaan habba baahida loo qabo dadka macadkaas abuurtay ama iska leh annaguna baahidan u qabno nabadda ayaa ugu horeysa oo waddankii colaad baa lagu kala tegay colaad dhaqanna maahayna waxayd colaad siyaasadeed marka in cilmiga loo badiyo dadka participationka ka qaybgalahaya bulshada in siyaasiyiinta lasoo xareeyo loo khudbeeyo la wacdiyo fakar la geliyo oo siyaasiyiinta laftigooda markay dadka xukumahayaan la yiraahdo political philosophy-gu mid u dhigma ma yahay waxa waddanka ka jira wacdiga waddanka ka jira ama amni ha noqoto ama dhaqaale ha noqoto ama horumarin ha noqoto marka aad baan ugu faraxsanahay horta in aan anigu ugu soo horeeyo halkan imaashahayguna wuxuu ahaa bal inaan barto wax ka barto idinkuna aad dhiiro gelisaan oo idinku macallimiin baatiin intaasoo cilmiga ayaa idinku jira aniguna markaas dadkii aan gaaro oo ama siyaasiyiina ama shacaba ama dad kala inaan niraano cilmigeenu hadda fakar sida bulshada loo dhaqayo yeysan ka iman qof maskaxdiisa laakiin ay ka timaado maskaxdii la aruuriyey research inay ka timaado Maraykanka institutionada jira ama think tank jira qaarba meel bay ku wajahan yihiin qaar waxaa jira ku wajahan caafimaadka CDC-da NIH-ka caafimaadka iyo scientific research-ka ku wajahan waxaa jira political think tanks oo kuwaasna meel bay ku wajahan yihiin marka doorka aan ka wadaa waxa weeye dowladda Maraykanka ayaa ku kabta dhaqaale culus inay u fakarto dadkeeda 20 sano soo socda 50 sano soo socda aan la sugin wiil maanta dhalanaya 50 sano markuu gaaro waxa maskaxdiisa ku soo dega laakiin in la sii og yahay meesha loo sii socdo marka waxaan soo dhaweynayaa waxaan dhiirigelinayaa macadyadan oo kale in la balaariyo la weyneeyo dadka waxgaradka ama indheergaradka in ay la soo dabo oo lagu soo recruit gareeyo inay meelahan oo kale yimaadaan ka shaqeeyaan intii mikrofoonka siyaasadda la aadi lahaa sidoo kale dowladuhu ama heer goboleed ha ahaato ama heer federaal ha ahaato waa inay fakar ka leedahay meelahan oo kale oo ay weyneyso budget u samayso
dowladnimada iyo sida loo nool yahana ay ku cabirto wixii la soo abuuray oo meesha ka jiray. aad baan ugu faraxsanahay hawsha gaarka oo baahida markaas jirtay oo PDRC u istaagtay nabadeynta mudug ama gaalkacyo. waxay ka turjumaysaa marka wixii cilmi baaris lagu sameeyey laga baaraan degay dadka la isugu yeeray inay macno yeelatay oo nabadaas hadda December 17ka ayaan jeclahay inay tahay sanad guuradeeda maalintaas in la weyneeyo oo dadka deegaanka ay khusayso inay weyneystaan ayagu ay xasuustaan dadkii dhaliyay oo ka shaqeeyana in si gaar ah loo xasuusto. macadku marka haddii ilaahay idmo oo nabadeyntu iyo nabaddu ay noo waarto waxay tegi doontaa meelaha kale oo hadda aad u soo jeesateen oo ka mid horumarka. horumarkaas waxaa ku dhex jira marka waxyaabo badan oo horumarku ma ahan un kaliya in lagu daydo westiga laakiin annaka waxyaabo gaar ah oo waddankeenu uu leeyahay dabeecaddeenu ay leedahay dhaqankeenu uu leeyahay duruufo gaar ah ayaa naga haysto horumarka marka environmental disasterka waddanka ka jira abaaraha nabaad guurka dhulka dhirtiyo dhammaanaysa habdhaqanka sida ama kalluumaysiga ama beeraha si wax looga sameeyo in waxaasoo dhan hadda horumarka halkaas lagu jeediyo. horumar kaloo hadda human capital wax la yiraahdo ayaantan socda topickaas in ayada laftigeeda laga faa'iideysto oo waxaan dareemaynaa ardada Soomaalida inay yihiin dad aad u firfircoon oo anaku inaan dhoofino qoonta in laga fakaro. markaad fiirisid India waxay dhoofiyaan oo lacag badan ka helaan capital badan ka helaan IT-da marka Mareykanka viisooyinka inta ka bateen ayay waxay dejiyaan islandyo ka baxsan oo Bahamas iyo meelahaas. marka inaan dhoofin karno laftigeenu waxbarashada hadda waddanku ma lahan meel gaara oo sida ITI-da Hindiya oo kale ama MIT-da Mareykanka kale waa government funded way waxaas loogu talagalay deliberate way. marka in dawladaha iyo dadka imaanaya ay fakarkaas noocaas leeyihiin aysan ahayn wax maanta dhalahaya laakiin 20 sano 30 sano 50 sano mira dhal noqonaya. cilmiga kale la dhoofiyo waa aragtay Cuba oo adduunyada ka xirxiran oo meel walba ka xiran waxay dhoofisaa ayaguna dhakhaatiir bay dhoofisaa waxay ku bedelataa batrool. dhakhtar bay ku soo dhoofinayaan batrool bay ka qaadanayaan dhakhtar bay ku soo dhoofinayaan caleen shaah bay ka qaadanayaan. marka waxaan haysanaa dhalinyaro badan caruurtuna waa noo badan doontaa haddii Ilaahay yiraahdo in laga fakaro inaan dhoofin karno aqoonta iyo human capitalkaas aan leenahay inaan ka faa'iideysan karno. waa marka waxaan isleeyahay dadka aqoonta u dhadhow ama dadka saas oo kale wax u fahmaya inaysan wuxuu campaign ka noqonay marka uu socdo campaignadu laakiin in ay wuxuu ku jiraan dhigooda ay fahansan yihiin meesha nala ka jiro. wadamada hadda sida gaarka u horumaray waxaa jira laba wadan oo hadda aad iyo aad dadku u sheegaan Singapore iyo Israel. Singapore waxay ahayd one man institution oo wuxuu odaga madaxweynaha soo jeediyo baa lagu dhaqamayo industrious people bay ahaayeen way u socotaa way ku shaqeeyeen fikir fiican buu keenay fikirkii baa industrious u noqday. Israeliyiintu way ka duwanaayeen waxay very chaotic system oo aliflaha iyo generaalku haddii miis la wada fadhiyo dhaqankoodu waxa weeye inaan darajo la fiirin laakiin afkaarta la fiiriyo hawsha la qabanayo. haddii generaalku uu qaldan yahay in alifluhu istaagi karo asagoon dambi lahayn. labadooda wadan markaa fiirisa marka hadda wax soo saarka ama creativity-ga waxaa u badan Israeli oo ayagu hadda waa arag technology-ga iyo
meel aan biyo lahayn bay waxay sameeyeen irrigation system baahidoodii ayaa keentay inay best irrigation system ay sameeyaan researchka ka timid ingenuitygaas iyo wax isku xirxirkaas marka waxay ka imaanaysaa qof walba in la yiraahdo hadal dooda ka qayb qaado waa sidii dhaqanka Soomaalidu ahaan jireen qof walba inuu geedka markuu yimaado qof walba garaadkiis uu hadlo inkastoo ay macadyadan oo kale ay yar yihiin tabar yar yihiin haddana anigu waxaan aaminsanahay in la weyneeyo la ballaariyo dowladdu ay budget gaara u leedahay system gaara u leedahay si looga mara dhaliyo khudbad badan umaana imaan laakiin inaan wax idinka barto ayaan u imid haddii aan dowladda ka mid noqonana waxaan aaminsanahay dadka cilmiga iyo waxbarashada aad u daneeyaan ahay inaan ayadana si gaara il gaara ku fiirin doono lexjeclo gaara iga haysa haddii aanan dhankaas u badan oo aan iska noqdo qof civiliana inaan xoojino oo ka qayb qaadano dhismaheeda iyo wanaajinteeda iyo cilmi baaristeeda ayaa aniga iga guuxaysa waxaan ka mid ahay oo jaamacadda Gaalkacyo GU founderskeeda marka si gaara ayaa bahda waxbarashadu iyo cilmi baaristu aan dareen gaara ii leedahay marka waad mahadsantihiin waxaan isleeyahay halkaan oo kale marka la yimaado khudbooyin ma ahane si informal ah in wax la isku weydiiyo cilmi badan iyo waxyi badan dhankeena ma soo jiro marka macadka PDRC madaxdooda waxaan mar labaad uga mahad celinayaa soo dhaweynta walaaltinimada leh aniguna waad igu tashanaysaan ama siyaasad ha lagu jiro ama ayaan lagu jirin inaan taageerno macadyadan oo kale ama APD ama CRD ama whatever system yimaada waana mahadsantihiin ma ahan hadalkii waa ka baxnay on wax isku celcelin soo dhawaada